الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله ilaahay baan ku mahadinaynaa masaajidka iyo madrasadaas markaska islaamiga inagu soo kulmiyey allahaasa jala wacalaa mahad leh runtii waa dadaal diineed waxaan u kulanay oo dadaalka diintana maaragtaanay haween iyo ragba waan u wada simanahay sida uu sheekhu ka dhawaajiyey dadaal muddo soo socday ayaan annakana maanta lanoogu yeedhay in ilaahay una waafajiyo inaan igala soo qeyb galno oo gabdho maaragtaane muslimaada oo mu'minaada oo isxil qaaday ay dadaalka diinta qeybta kaga aadan ay u dadaalayeen ay u taagan yihiin waana runtii waa dadaal aada in loo mahadiyo mutaystay maxaa yeelay ilaahay jala wacalaa isagaa inoo doortay diinta inaan ka wada shaqayno wاlmuؤminuuna wاlmuؤminaatu bacduhm أwliyaau bacd yأmuruuna bاlmacruufi wayanhawna can اlmunkar wayuqiimuuna الصalaaةa wayuutuuna الزakaata wayuطiicuuna allaha warasuulah ulaaئika sayarxamuhum اllah ina allaha caziizu xakiim aayaddaasi waxay ku taallaa suurat atawba waxaa ilaahay jala wacalaa uu ka waramayaa sifaadka ay leeyihiin dadka ahlaliimaanka hadday lab yihiin iyo hadday dhidiga yihiin oo ragga muuminiinta iyo haweenka muuminaadka sifada u horeysa ilaahay ku ammaanay waxa weeyaan inay yihiin dad isgargaarsada way tacaawunayaan oo dhexdooda tacaawun baa ka dhexeynaya way isgargaarsanayaan gacmaha isqabsanayaan wadiifada ugu horeysa ee ninka muuminka iyo haweeneyda muuminadu ay isku kaalmaysanayaan ilaahay jala wacalaa isaga inoo sheego wuxuu yihi waa dadka oo wanaagga la faro xumaha oo laga reebo salaada ayay oogayaan zakada ayay la imanayaan allah rabbulcaalamiinna way adeecayaan nebiga muxamed sala allahu alay wasalamna way adeecayaan kuwa sidaa yeelaa ilaahay u naxariisanayaabaa ilaahay yidhi ibnu cabaas allaha raalli ka noqday isagay aabihiibe markuu ka hadlayay ya'muruuna bilmacruuf wuxuu yidhi ra-su lmacruuf macruufka maaragtaanay ra-sigiisu waxa weeyaan waa dadka ayaa loogu yeedhayaa towxiidka ra-sulmunkarna waa shirkiga weeyaan shirkiga ayay ummadda ka reebayaan ra-sulmunkar waxa liixii munkaraad ee shareecadda islaamku ay reebtay inkirtay waxaa ka kow a maaragtane waa ashirku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo waxa li wixii wanaag ee macruuf ee diinteenna macaan ay nafartayna waxaa ka kow ah waa dadka oo maaragtane loogu yeedho laa ilaaha ila allah dadka loogu yeedho ilaahay keligii inay waxidaan marka wadiifada ugu horeysa gabadha muuminada iyo ninka muuminku ay isku kaalmaysanayaan ilaahay waxau inoogu sheegay inay tahay maaragtane wanaaga oo dadka la faro xumaha oo laga reebo ummadana ilaahay diinta dadaalkeega asagaa u doortay oo nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam maadaamu ilaahay uu ka yeelay nebigii nebiyada ugu dambeeyey mas-uuliyadda diinta ilaahay ummadan haweenkana uu saaray raggana ilaahay jala wacalaa waa saaray dumarku diinta makaanad weyn bay ku leeyihiin qur-aanka markaa la eegay suurad ragga loogu magac daray qur-aanku ma sheegin suuratu rijaal qur-aanka kuma taalo laakiin suuratu nisaa baa qur-aanka ku taala oo xaqa haweenku ay leeyihiin ayaa ilaahay jala wacalaa kaga waramaya qur-aanka waxaa kaloo lagu sheegay suurad loogu magac daray nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam suuratu muxamed waxaa kaloo qur-aanka lagu sheegay suuratu nuux
waxaa kaloo qur-aanka lagu sheegay suuratu huud. suurado ayaa jira ambiyada loogu magac daray, ma keligood baa may. kadalika maryamana qur-aanka waa lagu sheegay suuratu maryama. maryama ma ahayn maaragtaan nebiyad bay ahayd la odhan kari maayo, laakiin gabar saalixado wanaagsan bay ahayd oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku ilhaamiyey qalbigeeda inay ilaahay amarkiisa intay qaado ay ilaahay adeecdo, deedna jidhkeegana lagu abuuro shaksi bini aadana oo bilaa aabba ah. maryam albatuul baa la odhan jiray. maryam albatuul, albatuul waxay culimmadu ku macneeyaan waa tii ilaahay tabaaraka wa tacaala daacadiisa u dhaqaaqday ee u banbaxday ilaahay casa wajalla inay la munaajooto ilaahay ay raalli geliso. siday ku dhalatayna suuratu aali cimraan baa ilaahay noogaga waramay. aabbaheed aala cimraan, imra-atu cimraan, hooyadeeda ayaa waxay aragtay masaajidii qudus ku taallo oo masjid al aqsa uu ka mid yahay oo tacliintii barashadii diintu ay ku yaraatay. waxay arkeen ummadii oo masaajidii ka hijroonaysa oo cibaadadii iyo daacadii kasii jeesato adduunyada u jeesatay. markay arkeen ayay nidar waxay ku gashay ilmaha caloosheeda ku jira inay masaajidka uga dhigi doonto waqaf. qaalat imra-atu cimraana rabbi inii nadartu laka maa fii baطni muxararan fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim. fataqabalahaa rabuha biqabuulin xasani waanbatahaa nabaatan xasana wakafalahaa zakariya. qur-aanka ilaahay tabaaraka wa tacaala inoogu sheegay nidar waxay ku gashay inay ilmaha caloosheeda ay ku hayso ay ilaahay dartii waqfi uga dhigayso. ayadu laakiin wiil bay filanaysay oo caadatan waxaa jiraysa caado soo jireena in ilaahay nebiyada uu ka soo saari jiray maaragtaane ragga. wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim. ambiyada oo dhan baa ilaahay ku sheegay inay rag ahaayeen. deedna markay inan ay u dhalatay waa tii tidhi ilaahow anigu wiil baan moodaya inaan dhalaya, laakiin inan baan dhalee. ilaahow inanta iyo duriyadeedana waxaan kaa baryayaa inaad iga ilaalisid maaragtaane ibliis inuu taabto. wainii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaytaani arajiim. inantaa ii dhalatay iyo duriyadda iyada aad kasoo dhex saari doonto ilaahow waxaan ku weydiisanayaa inaad shaydaan iga ilaalisid ood iga magan gelisid baan ku weydiistay bay ku tidhi. markaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ducadeedii waa ka aqbalay. maryama ayaa maaragtaane u dhalatay. maryamana ilaahay jala wacala wuxuu ku arsaaqay inay dhasho maaragtaane nebi ciise calayhi salaam. waa axaadiis nabigeenu sal alla alay wasalam uu tilmaamaya waa kii lahaa ilmo kasta oo dhasha shaydaanku waa taabtaa, ibliis uu taabtaa, laakiin maryama iyo inankeeda ciise bna maryam ilaahay baa ka ilaaliyo uma taaban baa layidhi walaalayaal. dadna nebi ciise calayhi salaam oo aayada dhalashadiisa ayaa aayada, barbaaristiisa ayaa aayada, kursiintiisa ayaa aayad ahayd. aayad macneegu waa maxay? calaamo ilaahay lagu garta ayuu ahaa. min dhalashadiisa ilaa maaragtaanay tarbiyadiisa ilaa kursiimadiisa ilaa diridiisa isagoo yar ilaahay uu risaalad intuu u dhibay uu diinta u dirtay ayaa maaragtaane aayadii mucjizo ahayd. maryama marka waxay ahayd gabar saalixada oo ilaahay qalbigeega iimaan uu geliyey oo ilaahay jala wacala nebi dhan oo macsuumana oo bilaa aabaana ilaahay caloosheeda uu ku abuuray. dadna qur-aanka ilaahay uu kaga waramay suuratu maryam qisada oo dhammaystiran. suuratu aali cimraanna waa lagaga waramay markaa barhkeed. marka waxaan usoo qaadanaynaa qisaskaasi haweenku diintan islaamka makaanad weyn bay ku leeyihiin. waa kaa qur-aanka lagu sheegay suurad dhan oo loogu magac daray suuratu maryama. xaqiinana ilaahay baa tabaaraka wa tacaala caddeeyey. ayb gabadha muslimada ee mu'minada ummadan maaragtane makaanadeed ugu jirtaan. makaanad weyn bay gabadhu caalamka ugu jirtaa. mar waa hooyo, mar waa inan, mar waa walaal, mar waana xaas weeyaan. markay yar tahayna waa inantaadiiyo adiga ayaa dhalo. aabbuhu ubadkiisa inanta ayuu ugu jecel yahay. oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamid a caaisha waatii u sheegtay haweeney maskiinada ayaa caaisha u timiday. deedna markaasay weydiisatay maaragtaane cunto. 3 xabadood oo timir ayay siisay. 3dii timirta markii la siiyey haweeneydii maskiinadii xabad intay qaaday hablaheyga u kala dhiibtay. xabadii 3aad markay damacday inay afka gashatana 2 hablood ayaa yidhi hooyo xabadana noo gooyo, noo kala gooyo na sii. intay kala dilaacisay bay siisay. caaisha radia allahu canha waxay tidhi fa acjabanii sha'nuhaa. haweeneyda maskiinada sida 2deeda hablood ay ula dhaqantay ayaa i farax geliyey
oo iyaab geliyay deedna nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u sheegay markaabuu nabigu yihi intaaba jannadii ilaahay ugu waajibiyey buu yihi haweeneydaas ama naartiiba ilaahay kaga fogeeyey xadiis kale waa kii nabigu lahaa sal allahu alay wasalam laba hablood ninkay u dhalato ee labadaa kuriye ee barbaariya ilaa ay ka qaangaadhayaan aniga isagu ninkaa jannada sidaasaan isku nahay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba wiil nabigu ma odhan laba hablood buu yihi laba hablood ninka ilaahay uu siiyey laba hablood waa ugu yaraanba laba hablood baa ilaahay siiyey labadaa hablood buu koriyey korsiintiina uu wanaajiyey tarbiyadoodiibuu wanaajiyey ilaa ay ka qaangaadhayaan deedna markaabuu nabigu leeyahay ninkaas iyo anigu jannada sidaasaan isku nahay sidaas marka haweenku diinta islaamka meel iyo makaanad ayay ku leeyihiin mar waa hooyo oo hooyada xuquuqdeeda nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa kii ninkii saxaabiga u yimid ee yidhi dadka ehelkayga nebi allow qofka iigu xaq mutaystay een u ixsaan sameeya bali sheeg waa kuma markaabuu nabigu ku yihi waa hooyo haddana mar labaad buu ku celiyay waa kuma uma ummuka buu nabigu yihi hooyada haddana ayoo kale haddana hooyada markii afraad buu nabigu yihi aabbuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam aabbo marka afraad 75 markii la sheegay 100 markii la qaybiyo 75 xuquuqdii waxa uu nabigu siiyey waa hooyada saddex jeer markuu nabigu yihi waa hooyo ayuu nabigu markii afraad buu yihi aabbo Uways al-Qarni ninkii la oran jiray ee weliga ahaa ee ducadiisu mustajaabada ahayd ma ahayn saxaabi taabici buu ahaa waxaa la yidhi ninkaasi nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa ku sheego ku sii yidhi imdaad al-yaman ciidanka mujaahidiinta yaman ka iman doona waxaa la socon doona nin la yidhaahdo uways binu caamir baa la socon doona oo qarana oo suma min muraada ninkaasi waa nin jirhkiisa baras baa ku dhacday barastiina ilaahay waa ka shaafiyey mowdicu dirham lacagta dirhamka meel la dhigo oo jirhkiisa ku taalla in la eg bay kaga hadhay barastii intii kale ilaahay waa ka shaafiyey hooye ayuu ninkaasi hayaa iyo hooyadiibuu baari u yahee haddaad la kulantid buu nabigu ka yidhi cumar binu khataabow ninkaa waxaad ka tiraahdaa ilaahay dembi dhaaf ii weydii ka dheh cumar binu khataab allaha raalli ka noqdee maalintuu nebigu arrintaa u sheegay ilaa khilaafadii abibakar ilaa khilaafadiisii dadka xujayda yaman ka imanaya ama dadka mujaahidiinta ee xoojinta jihaadka u imanaya magaalada madiina jihaadka shaam baa markaa lagu jihaadayo loo baxayay inay jihaadka ka qayb galaan dadka u imanayabu cumar intuu dhex mara buu odhan jiray hal fiikum uways binu caamir maynigu jiraa uways maynila socdaa buu odhan jiray deedna markaasay odhan jireen mayna lama socdo haddana sanadka dambe kolkay yimaadaan xujaydu ay soo xajiyaan reer yamaneed ayuu cumar u tegi jiru odhan jireen manila socdaa uways markaasay yidhahdeen sanad walba cumaro waad noo timaadaa uways baadna weydiisaaye mid uways la yidhaahdo oo maaragtaanay iska miskiina oo faqiira oo dadkan maaragtaana ishu qabanaysa aanan ahayn ayaa nala socday oo may isagii geelii aan wadanay iyo awrtii aan fuushanayn ayuu noo raacay oo maaragtaane buuraha gadaashooda ayuu geela ku jiraa markaasuu cumar soo orday waxaa la socday marka cumar bnu khataab abalxasan caliy bnu abi aalib radia allahu canhu ayaa la socday dadna markay u yimaadeen cumar u waraystay ma uways baa tahay ha uways baan ahay bani caamir ibnu caamir haa min muraad haa uma min qaran haa markaasuu cumar weydiiyuu ku yidhi baras ma kugu dhacday haa ma ka bogsatay meel dirham la dhiga mooyaane intii kale ilaahay ma kaa shaafiyey haa hooye ma lahaydo hooyada ma kaa dhimatay haa cumar bnu khataab ilaa uu yidhahdo ilaahay dembi dhaaf ii weydii seed ugu ogaatay nabigaa noo kaa sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi uways binu caamir nabiga inuu u yimaado waxa uu kaga mashquulsanaa waa khidmada hooyada weeyaan marka hooyadu qiimo weyn bay diinta islaamka ku leedahay curwata ibnu zubayr baa la sheegay hooyadii baari buu u ahaa ilaa la ogaaday inuu hooyadii baari uu yahay lagu yidhi curwow hal maalin aduu hooyada cunto la cunaya laguma arkine maxay ku dhacday noo sheeg wuxuu yidhi waxaan hooyadii cuntada ula cuni waayey baa nii sheegi luqmada ay damacday in iyadu ay qaadato inaan ka hor qaato oon cuno oon caaqul waalideyn ku noqdaan ka baqay buu yidhi maalintay ka dhimatay hooyadiina sida ilmaha yarba u baroorto u ooyey markaasaa lagu yihi nin sheekha oo muxaditha ayaat oo axaadiidii nabiga sal alla alay slam baa taqaanaaye maxaad hooyadaa geerideeda san ugu ooyeysaa geeridu waa xaq
ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بأمده أي كصبرتي أبو بكر باك إيه كصبران عمر باي كصبران ما حد هو إذا سدن وجوه يسع عروة وعوده هو إذا أجش هذا لما هو أجش وحق وياه وإذا ويد ما تو إلهي بهرتكتي لكن الباب دي جنة اللوجا جل يبقى ما أنت أنا يجحد ما بيقولي الباب كيجحد ما أيان لا وياه بقول الأنتيس maalintii hooyadu ilmaha ka dhimato malag baa samada ka dhawaaqo yiraahda addoonkan ilaahayow tii aan sababteeda kugu naxariisanayna ka dhimate amal aan kugu naxariisana maanta laga bilaabo adigu la kaalay fadaa'ilka hooyadu ay leedahay wax la qiyaasi kara maaha bal abuurka bini aadanka ilaahay markuu ka waramayay labiya dhidiga ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu horeysiiyay untha buu horeysiiyay untha يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا بإلى حيدي إناث أبورك الرجع وحي لهاي كهر مريي أبورك هوانك دائما أفر صدى قرآنك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت وين بدين الإسلام كأي هوانك دكتي كبدا مؤمنات دا مركا حقنا lama koobi karaayo laakiin makaanadeed islaamka ugu jirtaa booskeed ku jirtaa hooyadu waa macallimad inanta waa macallimad ogow waxaa rag maanta adduunyada joogo dhan ininkaa dhalay hadday fiicnaadaanna ininkaa fiicnaanta u sababa hadday xun yihiin ininkaa u sababa baa la yidhi kula mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kastoo dhasha fitradda islaamka ku dhashaa buu nebigu yihi laakiin ayaa yahuudi ka dhigaya waa hooye iyo aabba un ayaa nasraani ka dhigaya waa hooye iyo aabba un ayaa majuusi ka dhigay waa hooye iyo aabba un hooye iyo aabbana markii la eegay inta badan ilmuhu wuxuu ag joogaa waa hooyada weeyaan marka haweenku hadday noo hagaagaan oo gabdhuhu ay noo hagaagaan waxay ka dhigan tahay mujtamac oo dhan baa hagaagi hal gabadha oo hagaagta baa la yidhi oo saalixad noqota 1,000 nin oo awliyo saalixiina ayay u dhigantaa baa la yidhi waayo 1,000 nin ee awliyada saalixiintu awliyo iyo saalixiin ma dhali karayaan laakiin gabadha muuminada saalixadu ubadkeega way tarbiyadeynaysaa iyada sidii nin culimada islaamka kamida ayaa la sheegay hooyadii markii aabihii uu ka dhintay ayay hooyadii ku dartay safar markaa bay sahayna weysiiso ay ku tiri magaalada galo majaalista culimada orad oo cilmiga ka soo baro akhlaaqday ku tarbiyadaysay iyo dhaqankiina u wataa safarkii uu la socday ayaa habeenkii niman tuuga intay dhexda u galeen ayaa dadkii la go'doomiyey qof walba markaa wuxuu uu lacag iyo dahab uu haystay qarsanaya yarkii yaraa tuugii horeeyay qabtay baa ku yidhi lacag maxaad wadataa lacagtuu watay oo dhan buu sheegay baa lacag aad u badan bay ahayd markaa buu ninkii tuugii ilmi yaraa uu ka naxay yarowe xoolaha intan leeg adeer maxaad iskaga sheegtay u qarsan weyday markaa buu hooyadii baa igu tiri weligaa been ha sheegin haddaad been sheegto ilaahayna uu ku nici bini aadamkuna way ku nacayaan yarkii yaraa nimankii tuugiintii way la yaabeen lacag badan buu wataa weligii been ma sheegin muxuu been u sheegi waayey hooyaa ku tarbiyadaysay tarbiyadu aqalka kala yimiday ayuu mujtamaca la dhex socdaa aqalkana qofka jooga waa haweenayda weeyaan aabbuhu inta badan dibaduu joogaa waa inanta waxa aqalada joogta aqalka maaragtaana 7 wiil ay gasho 7 wiil oo walaalaha guriga ay galaan haddaynan la joogin guriga basaas iyo daranyo waa laga dareemi laakiin guriga inan keliya ay ku nooshahay iyo 7 wiil oo walaalaheeda ay ku nooshahay gurigaas wuxuu ku qurux badan yahay waa gabadha weeyaan marka gabdhaha muuminaadka ee saalixaadka quraanka ilaahay ku amaanay waa inaan dhaqanka islaamka ilaahay nagu amaanay inaan raacno la inaga rabaa oo hadday hagaagaan mujtamaca hagaagiisu wuxuu ku xidhan yahay waa hagaagiina ininka weeyaan marka waa inaan ilaahay ka baqno weeyaan oo khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman adag weeyaan zaman adag oo dhalinyarada walibana u sii daran gabdhuhuna wayba kasii xag jiraanba waxaan ku badbaadaynaa markaa inaan diinteena qabsano ilaahay inaan ka baqno ilaahay ittaqi llaha xayثuma kunt meeshaad doontaba joogo ilaahay ka baq ilaahay ka baq haddaad yaraantaada ilaahay kaga baqdid weynaantaada ilaahay noloshaada kuu barakayn wixii adiga ilaahay ubad uu kusoo dhex mariyo o dhanna baraka yeelanayaan barako gabadha saalixadda ee muuminadu mujtamaca dhan bay bedelaysaa iyadu 8 ubaday inantu ay dhashay baa la yidhi gabadhu ay dhashay aabbuhu ma tarbiyadayn kara 8 uma sabri karaayo
ma seexin karaayo, ma cuntaysiin karaayo, dharka kama bedeli karaayo isagu, laakiin hooyadu intaasoo dhan bay u dulqaadan. 10 ubadoo hareeraha ka fadhiisata hooyada baa la yidhi qayladooda waa u dulqaadan kartaa, laakiin dibadda gabadhu markay u baxdo gabadh dariska hadday isku qayliyaan qayladeeda u adkaysan kari mayso. halka ragguna baa la yidhi qaylada guriga uma adkaysan karaan, laakiin qaylada dibadda ragga waa u adkaysan karaan. waayo gabdhaha meesha loogu talagalay inay ku sugnaadaan ay fadhiyaan waa aqalka dhexdeeda weeyaan. waxaa diin laynii barayaa, ee madaarista layniigu furay, ee muxaadarada layniigu jeedinayaa, ee culammadu ay nii wacdinayaan waxa weeyaan wax kale maaha inay gabadhu noqotaan la doonayaa murabbiyad aqalkayga ka soo saarta culamo iyo xufaad alqur'aan. tarbiyadda ubadku halka ka soo baxaysa waa aqalka. aqalkana macallimada ugu weyne dhex joogta waa hooyada, aabbaha maaha. ilmuhu inta badan hooyadu xiriir la leeyahay. hooyada aabbaha ciyaalku waa u kala soocan yihiin. ka waxbarashada ku fiicana si gaar u ilaaliyaa, ka waxbarashada ku liitana si gaar u eegaa oo il gaar ku eegaa, laakiin hooyadu sidaa maaha. ka ugu fiican ubadkeega, ugu tacliin fiican, ugu akhlaaq wanaagsan, ilaa ka ugu akhlaaq liita, iyada xaggayga ubadka waa u siman yihiinoo mid walba wuxuu isku arkaa hooyadu inay isaga ubadka ugu jeceshahay. hadduu ilmaheegu yahay ka xaafadda ugu liita, waxay odhanaysaa hooyadu ciyaalka xaafadda ayaa xun oo inankayga xumaynaye, inankayga waa ka mujtamacan xaafadda ugu akhlaaq wanaagsan weeyaan. sifaadkaasi waa sifaadka haweenku ay leeyihiin. alraxma, allah araxmaankana raxmadda ku sifoobay ugow. asmaada ilaahay ee 99 magaca ugu horeeya waa alraxmaan. hooyaduna sifada ay ku sifooday waa maxay? waa raxmad weeyaan. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin buu arkay dagaal lagu jiro oo islaan ilmaheygii qaadato laabta ku dhegsatay. markaabuu nabigu saxaabadii ku yidhi, eega haweenayda ilmaheyga intay la kacdo dad may ku tuuraysaa? maya nebi allow ku tuuri mayso. markaabuu nebigu yihi sida hooyadu ilmaheyga ugu naxariisanayso ayaa ilaahayna addoonkiisa uga naxariis badan yahay buu rasuulku yidhi. marka raxmad baa ku sifaysantihiin ininku. marka madarasada ugu horeysa mujtamaceenu ay ka soo baxayaan waa aqalka. cahdigii nabigeena sal alla alay wasalam haddaan u noqono siirada, wallaahi madaarisna ma jirayn, macaahidna ma jirayn, jaamacado diin laga barto oo laga soo baxona ma jirayn. ragguna masaajidka unbay diinta ka baranayeen. ninku wuxuu miskiidka ka bartana ou qaadayo reerkiisa unbuu u geyn jiray. ummu ayman radia allahu canha markii nabi maxamed uu wafaaday sal alla alay wasalam, abibakar iyo cumar baa is yidhi, ummu ayman inooge han buuqan oo han ziyaarane sidii nebiguba u buuqan jiray calayhi salaatu wasalaam. markay u yimaadeen bay ummu ayman iska oyday. markaasay u maleeyeen inay nebigii xasuusatay calayhi salaatu wasalaam. deedna markaasay ku yidhaahdeen ummu aymanay, amaa taclamiina ana maa cinda allahi khayrun lirasuuli illah, miyaanad ogeyn allah agtii nebiga inay uga khayr badan tahay adduunka joogitaankiisa? markaabay tiri waan ogahay, oo nebiga sal alla alay wasalam waxaan ogahay ilaahay agtiisa inay u khayr badan tahay, xagga loo qaado inay u khayr badan tahay baan ogahe. lama ooyaya arrinkaas, laakiin waxaa la ooyayaabay tidhi warkii nebi maxamed ilaahay noogu soo dhiibaya, waxyigii samada nooga imanayey ee nebiga la noogu soo dhiibayey, go-idda waxyiga uu naga go-ay baan la ooyayaabay tidhi. waa haweeney da-weyn, laakiin waxay qalbigeegu ku xidhnaa maaragtane waxyiga, cilmiga nebi maxamed lagu soo dejinayo ee malakul jibriil uu u keenayo, deedna nebigu saxaabadiisa dushooda uu ku akhrinayo, ee saxaabaduna nin walba intuu aayaddu nebiga ka maqlo uu reerkiisa u geyn jiray ayay maaragtaanay ayay la ooyeysaa. cilmiga ka go-ay bay la ooyayaan. marka haweenkuna zamankii nabigeena sal alla alay wasalam raggooda iyo walaalahood bay diinta ka baranayeen, ragguna masaajiday diinta ka baranayeen. ilmuhuna markaa hooyada dhabteeda ayuu diinta islaamka kusoo baranayay. boqoradii islaamka soo maray ka mid ahaa fi duwal wadanada waliba sharq alcaalam, wadanada acdeedka soo baxa, ayaa waxaa la yidhi boqorkaasi inankiisiibaa ciidan intuu kaxaystay buu jihaadkiiba u baxay. uu soo noqday markaa boqorkii aada u murugeysan. boqoradii baa ku tidhi maanta waad murugeysantahay, maxaa ku helayo? markaasuu yihi inankeenii baa magaceennii iyo sumcaddeenii dhulka ku dhiftayoo jihaadkiibaa la soo jebiyeyoo waa uuna bahdilay ninkaasi. markaabay tiri warkaasi sax maaha, ha lagu noqdo warkaas. maalmo kadib haddana boqorkii wuxuu soo galay isagoo aada u faraxsan buu qasrigii soo galay, qasrigii boqortooyada. markaasee boqoradiisii xaaskiisii baa ku tiri maanta farxad baa kaa muuqatay, maxaa jira xaaji?
markaasuu yihi inankeenii uu soo guulaystay gaaladiina uu jabiyey hanimana uu la soo socdaayo galabtana uu soo galayaa. markaabay ku tiri warkan dambaa saxa. markaabuu yihi warkii hore maalintii hore aan kuu sheegay waa adigii ood beenaysatee kan damba maxaad ku rumaysay buu yihi maxaad si ogtahay bal ii sheeg. waxay tihi waxaan ogahay baa jiro adigu aad ogeyn ood ka warqabin. waxaan ogahay inankeygaa curad maalintii calooshayda uu galay waxaan ka ilaaliyey afkayga luqmad xaaraana inaan geliyay tihi luqmad xaaraana. maalintii ilaahay uu iga soo saaray aan dhalayna een 40 baxay haddeed wixii muddada ka dambaysa markaan naaska nuujinayana waanu weyse qaadanayay tiro bisinkana waanu qabanayay. marka ilmaha tarbiyadiisii halkaa aan ka soo bilaabay inuu gaalo ka soo baxsadaa waa habeenkii xalay oo tagay bay tiri waa waxaan dhici karin. hooyadu waa taas. marka diin gabdha waxaan u baahannahay diin leh oo iimaan leh oo asturan oo xishood leh oo guri jooga. muslimada laga rabo baa la yidhi waa inay aqalkeega fadhiisato. aabaheed 20 sano u horeysana aabaheed baa iyo xagga dambe ka fadhin baa la yidhi. 20 ku xigana ninkeyga ayaa intuu qaato aqalkiisii buu geysan oo aqalkaabay fadhin. intaa wixii ka dambeeyana aqalka saddexaad ee gabadhu ay leedahay waa qabriga baa la yidhi. 3 aqal bay haweenku leeyihiin. aqalka aabaheed, aqalka ninkeeda maalintay dhimatay ka bixiyo qabriga unbaa loo saaray. saa darteed khayr baa inaga muuqda waa dadaalaysaan. haweenkii waxaa tihiin ininku maaragtaan madaarista iyo masaajida iyo culummada iyo diinta danaynayay. laakiin imisa haddana magaaladeena iyo dalkeena hablo walaalaheena dayacan maanta oo diintii noloshooda ay ka muuqan. marka inaan iskugu nasteexayno oon iyakana khayrka gaadhsiino oon u ducayno oon dacwada gaadhsiino dadaalkaasi waa laynaga rabaa. hada wabillahi towfiiq wasala allah